برشدا علمك مدنيا ogow dadweynow waxbarashada madaniga ah ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay waa kobcinta heerka wacyigelinta bulshada sidoo kale waxbarashada madaniga ah waxay xoojinaysaa xiriirka ka dhaxeeya dawladaha hoose iyo bulshada gaar ahaan xuquuqda madaniyiinta ay ku leeyihiin dawladaha hoose sida baahinta adeegyada bulshada waxbarashada madaniga waxay ka turjuntaa xuquuqaha qofka bini'aadanka xuquuqda isagu uu leeyahay wadanka uu ku leeyahay iyo mid isaga uu leeyahay maamulku waxa weeye waa adiga aniga asaga iyo ayadoo la isku daray maamulka degmada iyo dawladda hoose waxa la doonayaa in la xisaabtamo cashuurta sida la doonayo magaalada uga soo baxdo kawsaday noo soo baxdo wax badan bay dabooli lahayd ma ahan qofku inuu wax ka sugo kaliya dawladda waa inuu asagu wax qabsan karaa qofka dalaan cashuur bixin ama dadaan cashuur bixin dawlad ma ahaan karo waxaanu fahanay in aanu ka gudbi karno baryada iyo ku tiirsanaanshaha insaanka kale waanu nahay dad wax qabsan kara waxna la soo bixi kara dadku waxay rabaan wax qabad iyo wax cad itusi taabsi baa la rabaa dadku haddaan maamulka la shaqaynin waxa weeyaan maamulka wax qabadkiisu waa koobnaanaya waa yaraanaya cashuur macnaheeduna waxa weeye aan lacag baxsan wax inoo wada dhan waxaan inoo dhexeeya ku samaysanay walaalayaal wadanka hooyo wanaajintiisa wakiil kaleeto waxba kama saarne waxba kama saarne walaalayaal wadanka hooyo wanaajintiisa wakiil kaleeto waxba kama saarne waxba kama saarne وواجبات ويدا تلمانسو وواجبات ويدا تلمانسو barnaamijkan waxbarashada madaniga ah waa barnaamij ka mid ah barnaamijka weyn ee horumarinta degmooyinka ee JPLG oo ay iska kaashanayaan wasaaradda arrimaha gudaha hay'adda tadaamun oo fulinta u qaabilsan iyo hay'adda UNICEF oo maalgelinaysa waxbarashada madaniga ah waxaa loogu talagalay in sare loogu qaado lagu horumariyo wacyiga bulshada isku xirka dadweynaha iyo dawladaha hoose in dadweynaha lagu baro muwaadinimada waxa ay tahay lahaanshaha ka qaybgalka horumarinta deegaanka maamul baahinta iskaashiga bulshada dhexdeeda iyo isla xisaabtan ku dhisan hufnaan iyo xushmad oo ay wada xisaabtamaan dadweynaha iyo dawladaha hoose arrintan horta asal ahaan waxay ku saabsan tahay maamul baahinta sida maamulka loo baahin lahaa oo loo gaarsiin lahaa degmo ilaa xaafad ilaa laan loo gaarsiin lahaa ayay ku saabsan tahay ta kale waxa weeyaan waxay kaloo ku saabsan tahay isku xirka xaafadaha iyo muxuu ahayd dawladda hoose ee degmada bay iyaduna waxa weeyaan ku xiran tahay waxbarashada madaniga waxa weeye waxa beys u ah qofka muwaadinka ah inuu garto xaqa uu leeyahay ee muwaadinimada iyo waajibaadka isaga laga sugayo lagu leeyahay muhiimadda marka waxa weeye dadku inay la shaqeeyaan shacabku dawladda la shaqeeyaan inay dadaal muujiyaan inay nin waliba waajibaadka ku aadan dalkiisa sidii loo horumari lahaa inuu qabsado waxaa laynaga rabaa inaan barnaamijkan u diyaar garowno dhexdana ugu xiranno sidii aan wax ugu qaban lahayn dadkeenna dhulkeenna inagoo ayna cidna waxba ka sugeen qof walba waxaa ku xisaabtantaa qof kaa dambeeya waxbaa ka sugin inta adigu aa wax qaban karta qaba haddaad tiraa hebel baa wax qabanaya heblaay wax qabanaysaa isaguna wuxuu ka oranaya hebel baa wax qabanaya heblaay wax qabanaysaa marka halkaa waxaa ka baxaysaa qaybtii waxqabadka ahayd waxaan u baahannahay wixii dawladda aan xaquuq ugu leenahay hadday tahay horumarka bulshada
arrimaha bulshada sida isbitaalada MCA-yada waxbarashada wadooyinka in ay wixii aan xaquuq u leenahay in aan ka helo anaguna wixii xaquuq nala ku leeyahay oo waajibaad ah inaanu gaarsiino sida canshuuraha la tashiga awaamirta dowladda kasoo fushay inaanu fulino baan anaguna diyaar u nahay dowladda hoose la xisaabtan badan waa lala sameeyaa iyaga laftirkooda noo yeera mas'uuliyiintu iyaga laftirkooda waxay nala socodsiiyaan wadada maalinta awoodda la saarayo iyaga waxay nala socodsiiyaan qarashka ku baxaya intii budgetkii noqday cidii loo xil saaray inta shaqaale ka shaqaynaysa inta gaadiid ku xiran saacada la bilaabayo waqtiga ay noo taariikheeyaan oo maxaan ku dhahay inoo afjarmi karto qofkii shacaba oo gacan ka geysan kara oo markaa isaguna halkaa kaga dhawaaqa waxa weeye sida xaqiiqada markaan ka hadlo magaala madaxda Puntland shacabkeeda iyo guddigeeda dhisan oo dawladuhu dhiseen iyo guddiga hoose iyo dawladda hoose iyo consulku waa isku xiran yihiin waana wada shaqeeyaan waxaa loo baahan yahay marka in totally isku xirnaasho la muujiyo oo dadku isku xirnaado xubnaha golaha deegaanka xaafadaha annaguna waxaa waajib oo nasaaran oo rabbina nagula xisaabtamaya amaam allahi in kan baahan iyo ka buka kan dhiban iyo ka kale inaan ka warhayno annaga kaalintana laga rabo waxa weeye kii jid xiran iyo tii biyo booli dhisatay iyo tii gurigeeda hortiisa wax ku waxaysay iyo kuwii canshuurta diiday kulla annaguna waxaan rabnaa inaan boolis idiin noqono aan idinku garab istaagno canshuur xaafaduhu waa la diyaar dadku waxay rabaan waxqabad iyo wax cad itusi taabsi waa la rabaa horta maamulka la idin sheegaya sideed buu yahay dawladdu wax ku maamushaa dhaqaale haddaan dhaqaale leeyahay waxba lama maamuli karayo amni dhaqaale u baahan yahay sida la idin sheegay wadooyinka dhaqaale u baahan yihiin guryihii dhaqaale suuqyada dhaqaale kulli dhaqaale u baahan yahay mashruuc kasta oo la bixiyo ama hay'ad bixiso dawladda hoose waxaa laga rabaa contribution inay bixiso haddaanay bixin ma soconayo maamulka marka waa idinka dawladdu oodafay leedahay oodafada ay leedahayna waa shibilka shicibku hadduusan wax la qaban dawladdu xoog yeelanayso waa in dawladdu kacdaa ee shicibku kacaa waa inuu la shaqeeyaa waa in canshuuraha la bixiyaa waa in la ayidaa waa in howlaha wax allaale wixii ka hor yimaadaba waa in lala qabtaa waxaan ku baraarujinayaa inaynaan sugin dawlad inaynaan sugin mataqaanaa hay'ado inaynaan sugin mataqaanaa cid kale khayraadku dhulkeenu ku buuxaa khayraadka inaga haysana gacanteenu ku jira waxaanu garan la'anahay inaynu mataqaanaa fadhiga inta kacna wax qabsano inagu xoolaheedna ma haysanaa badeenna haysanaa baamushtarkeedna ma haysanaa waxaan doonaynaa inaynu iskaashano inaynu wax wada qabsano inaynu inaguna baranno professionka ururinta iyo isu tagga haddii waxa weeye gacmada wadajir bay wax ku gooyaan inaynu meeshii dhibaataysanba iyo keenna baahan iyo meeshii waddankeena isma doonaysa aynu inagu ku tashano inaynu wada qabsano soo wada qabsanaynaa isku tiirsanaan iyo wax wada qabsi iyo waxa weeye inaga oo cashuuraha bixina dawladdeena hareer taagan dawladda hoose la shaqayna waxa iyaga geli horumarka tilmaanta hoggaashiya ku xira horaarta dhaba dhulkaagana hoos u dhugo iyaga geli horumarka tilmaanta hoggaashiya ku xira horaarta dhaba dhulkaagana hoos u dhugo عرابو حليلة إيو هيان قرينو نهاي عرابو حليلة إيو هيان قرينو نهاي هشيسكي هذا كوا إنان هكذا مرنو بالشوي هلقو همينا عرابو حليلة إيو هيان قرينو نهاي عرابو حليلة إيو هيان قرينو نهاي هشيسكي هذا كوا inaan hegada marno bulshooy holku haminaa dawladda hoose waxay qaataa canshuur dadweynaha ka qaadaa canshuurtaa maxay ku qabataa dadweynuhu canshuurta ma u bixiyaan sidii la rabay ka siyaada ma bixiyaan contributions dheeraad fadli dheeraada ma ku daraan xoogooda tabaruc ma ku baxshaan iska waxba qabso ma galaan arrimahaas oo dhan baa runtii in la fahmo u baahan dadweynaha waxa weeye waajibaadka laga rabo baan annagu kulli aad iyo aad ugu soo celinaynaa waxqabadku tabartaas ka yaraato iyo resourciga la helo laakiin waxaan aaminsanahay dawladda hoose in badan oo kaalinteeda inay ka soo baxday wayna fiicnaan lahayd activitiyada aan qabanno inaanu halkaan oo kale kusoo barasta garayno
وجوجتدا أمنية iyo nadaafadda ay ugu horeeyaan tan balaanka iyo wadooyinka la dhisay dawladda iyada inaan wax ka sheegno iyo maamulka horta nooma wanaagsana laakiin in la xisaabtamo waa xaq waan xisaabtamayna annagu raalli baan ku nahay diyaar baan u nahay dalka wixii wax loogu qabanayo iyo dadkaba diyaar baan u nahay annaguna waxaan diyaar u nahay inaan dalkeena ka shaqeyno dalkana horumarino wixii dalka xuquuq nagu leeyahay hadday tahay xoog hadday tahay iskaashi dadka loo wax qabato hadday tahay lacag inaan annaguna bixino annaguna wixii aan xisaabtana inaan la xisaabtamo inaan baan ogol lahay annagu aan dowladda hoose wada xisaabtano oo isugu nimaan xisaab waa inaad wax noo sheegtaan wixii naloo sheegaan anagu qaadano annagu dalkayaga inaanu dhisno inaanu difaacno inaanu muxuu ahayd wixii nagu daalim ah dabagalo inaanu soo ogaano kulli wada teeri baanu wax allaala wixii wax qabanahaya oo wiilkayaga iyo walaalkayo waxbaan la qabanaynaa waa la horumaraynaa waa la hanaaninaynaa waana yeelaynaa malihin wax goob caafimaad malihin goob waxbarasho wax adeegyada bulshada waxaan biyo ahayn oo aan haysanaa ma jiraan aad baan intaa ugu baahannahay waxaan u baahannahay horta MCH waa u baahannahay gabdhaha maalin walba gaari baa la saaraa dooxada intayan gaarin bay dhalaa ilmihii waa dhintaa waxaan noogu daran waxaa noo jooga carruur waaweynatay oo 12 jiro 13 jiro oo goob waxbarasho aan lahayn marka annagu waxaan idin leenahay oo sambar waan dhahnaa idna kamana hoos qaaday anaga deegaankan degmada tan ayl waxa ay noo qabataa ma jirto waajibaadka lagu leeyahay muxuu yahay qofka muwaadinka ah waa inuu cashuurta baxsho inuu ka qayb qaato horumarka degmada oo uga qayb qaato qaab volunteer ama iskaa noqoto haddii marka aan cashuur la helin ama bulshada aysan si volunteer uga qayb qaadan hawshii ka socotay degmada maamul hore ma qaban karo meel lama tegi karo hadada ma sheegay ilaa heer dowlad dhexe ilaa heer dowlad hoose cid wax qaban kartaa ma jirto haddaan garab laga helin bulshada markay shillimada absimayhiinayso way shirtaa halkay shirxiyada dhigayhiisay shareerataa markaasay shilista geeda ku soo shubtaa shafeecada soo baxday sharwa ka wada dhigtaa wixii shida geliya sheeday ka wada arkaan inana ay shawro Puntland ay shuruudla muwaadin kasta oo reer Puntland waa inuu soo dhaweeyaa nidaamkan xukun hoos dadajinta oo xukunka hoos lagu soo dadajinay waa in wasiirada dawladdu ay ogolaadaan inay hoos u soo dadajiyaan waa in la helaa aqoontii dawladaha hoose ay ku hanan lahaayeen nidaamkan taa weeye tan horumarka Puntland ay ku gaari kartaa taa weeye tan shacbiga reer Puntland ay horumar ku gaari karaan taas weeye tan caruurta ama jiilka Soomaaliyeed ama jiilka Puntland ka soo baxaya ay ku horumar karaan taa weeye dhalinyarada 23 sano dawladnimo waxba ka aqoon ay wax ku baran karaan waxa weeye dawladdu shacabka la'aanta ma socon karo konsolka iyo dawladda hoosana xaafadaha la'aantood ma socon karaa haddaad nala tashataan oo noo timaadaan oo na wadataan oo wixii jira noo soo sheegtaan waa in raacayna wax walba annaga og oo ilaahayna tus tuuga annaga og midka wax qabtay annaga og midka wax qabana annaga og marka waxa weeye waa sida idinku sheegay dawladdu awalta gaar bay nooga tashan jiray nala tashada oo noo imaada oo waxa isla sheegno oo cashuurtu ayadaa soo baxaysee markaan wada shaqayno ceeb ma ahan shalay ninkii aan xukuumadda galay ama dawladda hoose aan ka shaqaynayn ee maanta ka shaqaynaya shalay shacab buu ahaa berrina adiga ku soo mari kartaa maantana aduu kuu shaqaynaya uu shaqaale kuu yahay waxaa la rabaa hadda shaqaalahaaga weeye in aad garab ku siisid dhalinyarada waxaa la doonayaa inay ka qayb qaataan horumarka ka socda dalkeena guud ahaan iyo gaar ahaan
dal kasta waxa uu qabto waa dhalinyaradiisa waxa uu ku tashanayo waa ardaydiisa waxa horumar gaarsiinaya waa dhalinyaradiisa ma xoog lagu tashanayo oo wax kasta qaban kara waa dhalinyaradeena haddaan anagu ka tagno haddaan ka taariibno cidna noo dhisimayso cidna horumarin mayso meelaha u taariimayna ama aan tegina ama aan tigsanino rag baa dhistay rag baa iskale rag baa maskaxdoodii xoogoodii maskaxdoodii aqoontooda ka shaqeeyay dhalinyaradeena wax barata ee jaamacadaha aaday ee dalku ku tashanayo ee dadku ku tashanayo ee iftiinka aan waxaan kula talinayaa inay dalka dib ugu soo laabtaan inay dalka horumariyaan dhammaan inta dalka joogtana dalkeena ayaa inaga iskale inaga inaan horumarsano dalkaagii burbur buu ku jiray intaasoo sano marka ina xuqootid baa la rabaa hadda adigu ka tagtid oo tiraahdo dad iga dambeeyaa dhisaya dee dadka kaa dambeeya maxay yihiin adigii waa ka tegay horta qof kasta oo muwaadin ah oo waddanka u dhashay oo Soomaali ah waddanka inuu ku leeyahay xaq asaguna waddanka uu ku leeyahay xaq marka uu raadiyo mas'uuliyadda uu waddanka asagu ku leeyahay oo helana ta uu leeyahay waxaasna wuxuu ka helayaa mas'uuliyadda waddanka ku leeyahay wuxuu ka helayaa dawladda tan waddanka uu ku leeyahay waxa laga helayaa nafsisaantiisa waddan kasta waxa dhista waa dhalinyaradiisa haday ahaato gabdho iyo haday ahaato wiilalba dhalinyarada waxaan leeyahay mustaqbalkii baati waxa soo socda iyo waxa maanta jooga iyo waxa ka dambeeyo ku xigo berri ku xiga idinka iska leh aniga iyo wixii la mid waa tage waa idin garab istaagaynaa waana idin daba istaagaynaa wixii aan arki jirnay oo naqaanayna waxaanu idin leenahay khatartaana ka leexda wadadaasna mare horta taa ku wada tashada barnaamijkan waxa weeyaan waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan oo la isku xirayo dawladda iyo shacabkeeda shacabka lagu barayo xuquuqda lagu leeyahay ay dawladdu ku leeyihiin dawladdana loo sheegayo shacabku xuquuqda ay ku leeyihiin labadaas xuquuqood oo midba mid laga leeyahay sida daraadeed barnaamijkan waxa barnaamij wacyigelina oo ka hirgalay 7 degmo oo ka shaqeeya barnaamijka JBLG isla markaas 70 goobood ayaa laga fuliyay wacyigelintan degmooyinka laga fuliyana waxa weeye Garowe Kaalkacyo Qardho Boosaaso Bayla Ayl Jariban degmo kasta oo kamid ah waxa laga hirgeliyay 10 goobood oo kamid ah ama magaalooyinka weyn dhexdooda xaafadaha ha ahaadeen ama ha ahaato tuulooyinka degmada hoos yimaada ha ahaato saas loo hirgeliyay wuxuuna ahaa barnaamij aad iyo aad meel dhal u ah oo waxa weyn lagu ogaaday waxa lagu ogaaday shacabka inay shacabka Puntland yihiin dad dawladda fahmi kara waxay ugu tooran tahay waxbarashada madaniga waa muhiimad weyn cilmigu waa miro baxayo la muudsadaa maskaxda iyo maanka qalbigu ku maaxsan yahay haddii aad madani tahay oo mas'uul sidaan lagama marmohe inaad muuqata habboon oo dawlad hoosiyo dadweyne u dadaalka wada idinkoo isku duuban weligiin hadaalinina ogow dadweynuw xaquuq garabaad lahayd adna midba laga doonayaa ha dareensanow arrimo bulsho iyo adeeginayo dayici xaquuqdaad leedihiyo waajibaadka jira waxaad ku ogaan kartaa waxbarashada madaniga wadankiisa uu shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane ogow dadweynow xuquuq baad leedahay ogow dadweynow waajibaad baa lagugu leeyahay ogaanshaha xuquuqdaada iyo gudashada waajibaadkaaga waxaad ku ogaan kartaa ka qaybgelisa waxbarashada madaniga ah